habeen wanaagsan daawadayaal halkan aan ku sugannahay caawa waxa lagu xusayaa waxa weeye habeenka toddobaadka xuska dhaqanka Puntland iyo Soomaaliya halkan waxa yaala alaabo badan oo dhaqan ah oo la soo diyaariyay oo ay soo diyaarisay dalada Hilaal marka waxaan isla soo eegi doonaa alaabta dhaqanka ah oo meesha la isku keenay iyo waxay yihiin inta ka garanayno ayaa inii sheegi doonaa nakeen halkan waxa ku sugan alaabo badan oo kala duwan kan waa koobka shaaha ahaa oo barigi hore shaaha lagu cabi jiray koobtii shaaha lagu cabi jiray waa koob caaga weey oo dhir laga sameeyay hadda koob bahalka iyo biraaba wax lagu cabaa waxyaabo kala duwan ba halkan taala halkan waa qaadadii weeye oo bariiska lagu cuni jiray sidoo kale bahashan waa bahasha bacda hadda meesha aan bacda ka isticmaalno barigi hore tan la isticmaali jiray halkan waxa yaala isaguna waxa yaala kamankii baalkii la tumi jiray oo kamanka ahaa oo isaguna la soo diyaariyay waxyaabo badan oo ba halkan ku sugan halkanna waxa yaala cuntooyin dhaqan ah oo kala duwan oo la soo sameeyay oo ah cuntooyinkeennii dhaqanka Soomaaliga ahaa halkan yaal halkan waxa ku jira burdambas ama burka dhulka lagu sameeyo oo dhuxusha la dhexgeliyo halkan sidoo kale bur kala ku jira halkan canjeeladii baa ku jira halkan sidoo kale digir baa ku jirta halkan hilib shiilan baa ku jira waxaan oo dhan waa alaabtii barigii hore la isticmaali jiray inkastoo hadda waxyaabaha qaar la isticmaalo laakiin waa wixii Soomaalidu ay caadi u isticmaali jirtay hadda meesha baastada iyo bariiska laga isticmaalo waa waxyaabihii hore oo Soomaalidu dhaqanka u ahayd oo isticmaali jirtay halkan sidoo kale dhiilo badan baa yaala oo ah dhiilihii caanaha lagu shuban jiray alaabtaan oo dhan waxa soo bandhigtay dalada Hilaal oo ah dilad qaabilsan dhaqanka iyo hidaha magaalada Qardho halkan xaflad weyn baa caawa ka dhici doonta oo lagu maamuusayo toddobaadkaas aad iyo aad baa mahadsantiin waxyaabo badan oo halkan ka dhici doona ayaa inii soo tabin doona mahadsantiin